dhibaatooyinka social media waxaa ka mid ah in sawirro iyo muuqaalo lagu sharaf dilayo dadka caanka ah iyo kuwa caanka ahaynba lagu faafiyo baraha social media. Arrintaasi waxaa dhibano u noqday dad badan oo ku nool dalka iyo dibaddiisa. Sariirtayda iyo qolkayga albaabkiisa aan u dhaxeeyo dadkii dhan aan ka cabsado aniga dhan stress buuq iyo murug aan isku furo. Fahmo waxa ay ka mid tahay dadka dhibanaha u ah waxaana sawirro iyo muuqaalo ku dhibaateeyay wiil ay kala tageen 2 sano ayay murug oohin iyo ceeb ay dareemayso guriga uga bixi weyday. Ninkii wuxuu isku dayay bilooyin kadib iyo maalmo kadib inuu wixii maalinta isqabnay iyo sanadaha isqabnay na dhaxmarayay inuu igu rikaateeyo oo rikaatay iga dhigo sawirradii iyo fiidiyoyaashii markii dambeeto dhowr qof hadan in isoo dirtay ay gaartay oo 100 qofood 10 qofood ay u gudubtay si ay isku dhagoolooynaa waxaan wax maalin go'ay waa 2 maalin go'ay 3 maalin go'ay iska aamus wixii muddadii markay bateen heer ani waxaan gaaray anigoo qolko iyo u dhaxay macnaha sariirtayda iyo qolkayga albaabkiisa aan u dhaxeeyo dadkii dhan aan ka cabsado aniga dhan stress buuq iyo murug aan isku furo. Dumarka oo kaliya ma ahan dadka laga faafiyo muuqaalada waxaa jira rag waliba laga qaado lacag rakaata ah si aan muuqaalada looga faafin. Guuleed ayaa ka mid ah dadka dhibanaha u ah sawirrada iyo muuqaalada la iska faafiyo. Magacaygu waa Guuleed. Waxaa jirtay gabar aan wax badan iskuunsanaynay wada hadlaynaa muuqaalo iyo sawirro aan wada galay markii aan kala hadhay tina maalin kasta in la sawirradii waan fasaxayaa oo dhibaato aniga iga soo gaadho dhinacii dignity-ga oo maadaama aan qof bulshadiina aad dadkii istaqaaniin oo qof sharaf leh tahay marka qof kulli arrintaas dad badan oo ila midna way jiraan kulli arrintaas kulli qof ay taabatay oo u dhiman baanahay. Gudoomiyaha ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed Dr. Shaafici Shariif Maxamed ayaa wax ka weydiiyay waxyaabaha sababa in marka horeba lamaanayaasha muuqaalo iska duubaan. Waxaan dhihi karaa 2 arrinba way dhici kartaa. Marka koowaad lamaanaha inta badan ama dhalinyarada hadda waayadan dambe ayaga oo ula jeedo inay jacayl iyo romance inay ku jiraan inay videos iyo sawirro iska qaadaan ayagoo ku sugan xaalado markaas aanan dadka private ama dadka public loogu talagelin. Sidee looga hortagi karaa muuqaalada iyo sawirrada lagu faafiyo baraha social media? Marka waxaa loo baahnaana in la helo wacyigelin sidoo kale in la helo sharci maadaama waaga hore waxaa laga yaabaa sharciga ama maxkamadaha yaalo inuusan ku jirin qodob ka hadlaya social media iyo waxyaabahaas maadaama waxaan wax soo kordhay yihiin in dawladda ay sharciyo ka soo saarto iyo sidoo kale qofkii lagu arko waxaan inuu ogaado cawaaqibta uu kala kulmi karo. Arrimahani waxay ka dhexdhacaan dadka xiriir wadaaga ah ee kala hara iyo kuwa guurku dhex maro ee kala taga waana arrimaha aan wanaagsanayn oo sanadahan dambe ku soo badanayay bulshada dhexdeeda. Su'aal Cabdi Casiis Daahir, warbaahinta qaranka, Muqdisho.